xafladani oo ahayd mid meeqaamkeedu aad u sarreeyo ayaa waxaa xilka kula kala wareegayay golihii deegaanka ee hore iyo golaha deegaanka cusub ee degmada Gabiley. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay bulsho weyn aad u tiro badan oo reer Gabiley ah isla markaasina xiiseynaya in ay ka qayb galaan xafladani. xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ee maanta xilka wareejinayay ayaa muddo 9 sano ah ka talinayay halkani oo ah degmada Gabiley xildhibaano golo deegaanka ka ahaa. xafladani meeqaamkeedu sarreeyo ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda hawlaha guud, agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay waxaan leeyahay qoladii hore golaha deegaanka wixii aad qabateen way muuqataa oo wax muuqda idinkana ilaahay waxaan idinku ducaynaa idinku bedelo wax khayr qaba. waa golaha waxqabadka waxay ku mutaysteen waxqabadka lagu majirto gobolka ee uu ku noqdo gobolka cagaaran. waa golihii keenay waxayna ku keeneen waa team work bay ku keeneen wada shaqayn iyaga iyo maayarkooda. horta waxa weeyaan waad ka nasiib badantihiin sidii suldaanku sheegay golihii deegaanka ee hore, waayo hawl dhammaystiran oo wax yar ka dhiman yahay ayaad la kulanteen. waxaan leeyahay waxa la idinka fadhiyaa maanta inaad ku daba hoggaansataan horumarka iyo waxqabadka uu golihii hore maanta ka tagayo, inaad idinkuna waxqabadka halkaa ka sii qaadaan. golaha hore waxay ahaayeen saaxiibaday, waxay ahaayeen nimaanu soo wada shaqaynay, waxay ahaayeen nimaanu muddo wada joognay. nasiib wanaag ilaahay maanta wuxuu igu simay aniga oo ka mid ahaa xogayihii golihii ugu horreeyey ee deegaanka ee degmada Gabiley, maantana ka mid noqday golaha cusub ee deegaanka degmada Gabiley. xagga horumarka miisaaniyadda golaha halkii aan ugu nimid maanta way 4 laaban tahay. golahani wuxuu qaban doonaa maalintii teediinkii miisaaniyaddii golahani la wareegay iyadoo 4 laaban. annagana insha Allah bidmillaahi kariim waxaan u dhaaranay ee gobolka horumarkiisa ah waanu qaban doonaa oo waxaan u nimidna halkaasi. waxaad nagu ogaataan Gabiley oo maanta sidan ka fiican hadduu ilaahayna gaadhsiiyo. ragga xildhibaanada naga horreeyay 8 sano joogay iyo 10 years, annagu laakiin waxaan haysanaa 5 sano. waxaan rajayn doonaa hadduu ilaahayna gaadhsiiyo halkay gaadhsiiyeen inaanu sii libilaabmi doono hadduu ilaahayna gaadhsiiyo. asxaabtaydii golaha deegaanka ee muddada 9 sano ah golaha deegaanka ee Gabiley xilkooga soo hayay oo aan anigu maanta ka soo hadhay oo golahan cusubna ku cusubahay, runtii waxaan uga mahad celinayaa muddada ay shaqaynayeen, tacabkii ay gobolka soo geliyeen, waqtigii ay u soo hureen, aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii ay uga faa'iideeyeen. golaha maanta halkan jooga iyo golahan laba sifay ku kala duwan yihiin. golaha maanta halkan jooga wuxuu ka mid ahaa raggii tacabkan aynu maanta u joogno qoriga u soo qaatay, iyagoo soo halgamay oo xoreynta iyo nabadda dalkan iyo xasiloonidooda ka soo shaqeeyay ayay haddana waqti kala geliyeen inay dalkan horumarkiisa iyo wanaaggiisa ka shaqeeyaan. kuwa tacabkii ay sameeyeen ka faa'iidaystay way ku yaraayeen. golaha iyagaa maanta cusubna dhammaantii wuxuu u badan yahay golahii waxa weeye raggii tacabka ay sameeyeen ku aflaxay, ku taabagalay, wax ku bartay. in Gabiley mar walba cidda wuxuu qabanaysaa ay eegto dhageysatana sidii golaha hore ahaa ee uu ku dhammaaday ee uu hawshiisa u fushay ee Gabiley wax badan looga qabtay, si ilaahay loogu mahadnaqo oo ilaahay loogu xamdiyo. golahan cusub ee halkan ka muuqda ee la yidhi waa dhalinyaro, waxaan leeyahay golihii hore niman xoog soo shaqeeyaa saa la sheegay aad iyo aad bay mahadsan yihiin. wixii aanu isyaro laynay intii ay golaha deegaanka ahaayeen wasaaradda arrimaha guud ahaana saamax baynu kala ahaanaynaa. waxa uu maxamed amiin ku guuleystay in uu degmadii Gabiley iyagoo golaha deegaanka ee Gabiley ay yihiin in aga baryaa laybadee wajaale iyo arabsiba ay ka mid yihiin Gabiley oo Gabiley hooyadoo tahay. waxqabad uu gaadhsiiyey ka halkaa ka sii wada. xubintii dumarku way ka dhiman tahay golaha deegaanka ee Gabiley, walow ay nimca tartantay 100 nimco kalena gobolka way joogaan. maadaama aanu ka maqanahay golihii deegaanka gobolka Gabiley, hal hoos ha loo eego xubin sharafeedyo dumaraha la sameeyo oo ka hadla baahida aasaasiga ee haweenka ee gobolka taala. raggii hore waxaa ka soo haray maxamed amiin 12kiina kaleba waa cusubtii. waxaa idinka muuqataa idinkana waxaa la idin leeyahay waa dhalinyaro master iyo degree wada sita. bal waynu eegnaa xildhibaanadii hore waxaa loogu yeeri jiray golo degaan. hay'adaha xanaaqina haddii la yidhaahdo waa xubin dawlada hoose, waayo xeerka sharciga qaranka Soomaaliland baa dhigaya.
ومحمد عبد عمر محمد الدين ورركة ورباهنة SBC قبل كجبلي